barnaamijka dhallinyarada maanta. halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kawdiyo barkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay 15 bisha May sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxay halkan si wada jira idin kala socotiin doona Caasha Ibraahin Aadan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan guurdhaqameedkii hore ee gobolka Awdal. marka inta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasa haddii la dhaahdo la isku qaabili jiray halkaasaa wanka loogu qali jiray halkaasaa loogu xeedhayn jiray kadib waxaa iman jiray yaradka madaxiisii kadib waxaa iman jiray haddana meherkii. sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna dhinacii qasiidooyinka rabadaanta ayaan ka madhnaan doonin. يا نبي الله يا سلام عليك يا حبيب الله يا سلام عليك السلام عليك يا ابن عبد الله السلام عليك يا ابن عبد الله. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida. qof oo ay ku jiraan dad rayida ayaa rag hubaysan oo haybtooda aan la garanayn ay ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada loo yaqaan RSF ee dalka Suudaan u joogay ee magaalada Kadugili oo ku taala duleedka koonfureed ee gobolka Kordofaan ee wadankaasi Suudaan. Hamdan Dagalo oo ah taliyaha ciidamada weerarka lagu qaaday ayaa cambaareeyay weerarkan. maamulka magaalada Kadugili ayaa iyaguna sheegay in raggan weerarka soo qaaday ay ku labeysnaayeen dareyska ciidamada militariga sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada militariga ee dowladda ku meel gaadhka ah ee maamulka koonfurta gobolka Kordofaan. 19 kale ayaa iyagana weerarkan ku dhaawacmay iyada oo diyaarad lagu qaaday isla markaana lagu geeyay caasimadda Khartoum si loo soo daaweeyo. ilaa iyo hadda ma jirto ciidan loo soo qabtay weerarkan sidoo kalena weli lama aqoonsan cidda ay ahaayeen dableyda weerarka soo qaaday oo la sheegay inay wateen 4 gaari oo ah nooca loo yaqaano Land Rover. 20 muhaajiriin tahriibayaal oo ku go'doonsanaa xadka ay wadaagaan Thailand iyo Malaysia muddo 2 toddobaad ah ayaa lasoo badbaadiyey sida uu sheegay sarkaal ka tirsan safaaradda Myanmar ee ku taala Bangkok. USAI oo ah turjubaanka rasmiga ah ee safaaradda Myanmar ee ku taala Bangkok ayaa u sheegay laanta baarmiiska ee VOA in tahriibayaasha dhibaatada ku dhacday ay ku rafaadsanaayeen hal qol kadib markii qof wakiil u ahaa kaas oo u ballan qaaday in shaqooyin ay ka helaan Malaysia uu kaga tagay goobtaasi kadib markii ay soo wajaheen xanibaadyo xagga safarka ah oo la xiriira xanuunka faafa ee coronavirus. markii ay safaaraddu heshay wicitaan ka yimid kooxda midkoodna ma uusan garan karin halka ay joogeen. safaaradda Myanmar ayaa caawimaad weydiisatay militariga Thailand. militariga Thailand oo gacan ka helaya booliska laanta socdaalka ayaa kooxdan ka soo badbaadiyey deegaanka la yiraahdo Sungai Kolok oo ah magaalo ku taala gobolka Narathiwat oo u dhow soohdinta ay la wadaagaan Malaysia. Thailand ayaa muhaajiriintaasi waxa ay ku wareejisay mas'uuliyiinta Myanmar. laanta afka Soomaaliga VOA ayaad dhageysanaysaan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaanu idin leenahay Ramadaan Mubaarak. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta Jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka waxaa maanta inoogu martiya Suldaan Xasan Xaddi Baade oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool gobolka Awdal
inta badanna soo gaadhay sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida. waxaan mawduucan ku soo qaadanaynaa uu yahay habkii hore ee sooyaalka dhaqanka oo ahaa guurka soomaalida, inuu marka hore faahfaahin inaga siiyo guurdhaqameedkii hore ee soomaalida. aad baad u mahadsan tahay. haddii aad iga weydiisay guurdhaqameedkeennii hore, wixii aan ka soo gaadhay wuxuu ahaa iyada oo hablaha waalidkuuna bixiyo, waalidada uuna bixiyaan, iyagoo dhan haasaawinba uun la idhaahdo odayga inan baan kaa doonaynaa hebelow, dabadeedna uu yidhaahdo dee inantaa waan ogolahaye haddii a la idhaahdo waan idin siiye. sidaa darteed odayaashii inanka ka socday uunbaa socon jiray. inanba lama kaxaynanna lama kaxaynayne waxaa la tegi jiray reerkii, waxoogaa dee jaadna ma jirin, sigaarna ma jirin, guntin yar oo lacaga ayaa la qaadi jiray, reerkaa looga jiray. waa rumbiyaday ahayd, rumbiyado wax badan may ahayn. intaasaa la geli jiray. dee gabadhi baan idinka doonaynaa nasiiyaa la odhan jiray. waana idin siinay markii la idhaahdo dhowr maalmood ama wiig dabadeed bay haddana soo kaxayn jireen wax la idhaahdo horwad oo ama geela ama lo'a iyay soo kaxayn jireen. reerkii bay gelin jireen. waa yarad madaxiisii baa la odhan jiray, yarad madaxiisii. kadib haddana inantii waa laga noqon jiray, markaasoo muddaa laga yar maqnaan jiray. kadib baa haddana kolka lasoo xaamxaamta loo iman jiray reerkii. halkaasaa inantii iyo inankiina waxaa la odhan jiray warse soo arka dee inankuna inanta soo inantayna inanka bal hadda iska arag baa la odhan jiray. odayaashii halkaasi ka soo noqon jira oo yarad madaxii bay haddana soo kaxayn jireen. bal intaynaan yaradka madaxiisa u gelin suldaan, gabadhu marka sidaa waalidku inankii uu u doono gabadha, doonanaan baa la odhan jiray. doonanaan baa la odhan jiray, ha. gabadhu intay doonanaan jirtay muddo intee leeg gabadhaasi way doonantao hebel bay u doonan tahay la odhan jiray. ama 6 bilood ha doonanaato, ama sanad ha doonanaato, ama 2 sannadood ha doonato. qaar baaba loo bixin jiray nimanka hablaha doonaya, kolkuu hantidiisu la yar raago la odhan jiray hebel doonan, yaaba la odhan jiray hebel doonan iyo heblaayo doonan. oo weli inantii way doonan tuhun, inankii weli inantii wuu u doonan tuhun, hebel doonanow baa la odhan jiro lagu dacaadayn jiray inanka. inantana heblaayo doonan baa laodhan jira, weli maan lagu meherin oo lagu guursan baa la odhan jiray. inta aan meherku dhicin, wiilka iyo gabadhu wayse sii arki jireenoo way sii hasaawi jireen, maadaama ay isku doonan yihiin sooma dhaqankii hore sooyaalka soomaalida. hasaawaha badan ma jiri jirin, is-agjoogsiunbaa la odhan jiray. waaba dee la kala ilaalin jiraba ilaa la isla aqal galo in meelaha la isku ararko waaba laga xanaaqsanaan jire oo dhaqankeenna ma yahayn. laakiin marka au soo dhow yahay gurigalkii iyo meherkii soo dhow yahay iyaysa sii arki jireenoo ay sii arag joogsan jireen. dee anna way kan adigana waa ku kan heblaayoy yaa lays odhan jiray. kadib reerku yaradkiibu haddana soo kaxayn jiray, inankii iyo inankiiba la soo kaxayn jiray. aabbuhunbaa inanta meherin jiray, iyagoonan haddii la dhaahdo wax istiidihii meesha aanay jirin. bal suldaan waxaad nooga sheekaysaa habka doonista gabadhu ay u dhici jirtay waagaa hore ee guurteeda soo doonaysa ee wiilka la socdaa ay qolada kale isku qaabili jireen ee gabadha ay ka dhalatay ee gabadha loo dooni jiray, habkuu u dhici jiray. marka inanta la soo doono, odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray. geedkaasaa haddii la dhaahdo laysku qaabili jiray, halkaasaa wanka loogu qali jiray, halkaasaa loogu xeedhayn jiray, halkaasay odayaasha labada dhinac isku qaabili jireen. kadib waxaa iman jiray yaradka madaxiisii, kadib waxaa iman jiray haddana meherkii. meherku kolkuu yimaado ee aroosku halkaas abaabulkiisii dhammaado, waxaa la soo goyn jiray geed quraca oo tagan la yidhaahdo, oo intoo dabada loo qodo waabkii iyo golihii lasoo ooday, ardaagii lasoo ooday bartankiisa lagu taago la ydhahda waa tegankii arooska yaa la odhan jiray. sidaasaa haddii ladhahdo arooskii marka la isku meheriyo dabadeedna aqalka waxaa lagu dhisi jiray meel halkaa ka fogo inanka iyo inanta shaqadhooda aan cidina dhagaysan maqalna gacalku una maqal. markaa aqalka ma waxaa dhisaya dhinaca gabadha oo ninku wuxuu noqonayaa marka hore
inan layaal buu noqonayaa oo inantu aqalkii hooyadeed ay ku aqalgelaysaa miya aqalkii aqal loo sameeyey oo hooyadeed ku ilka beeshay baa loo samaynayey oo haddii la hararihii leh oo cawsaloolkii leh oo kabadii leh oo haddii la idhaahdo waxaasoo alaabahoo quruxdaad yaabto oo la idhaahdo hararka waxaa la odhan jiray soogaan iyo indhadaalis iyo abeesooyin iyo haddii la idhaahdo jeedallo magayo caynkaasaa lagu xardhi jiray oo xadhka iyo maydhax ama la madoobeeyey ama la caseeyey iyaa lagu samayn jiray halkaasaa kabad haddana waxaa la samayn jiray foodsaar la idhaahdo aqalka waxaa loo samayn jiray labadaryaala laga dhigi jiray aqalka waxaa loo samayn jiray qoqobe oo gudaha horena wax geli jiray dee dadkaa geli jiray in kaloo iska hadiraado dudabilaash la yidhaaho xagga soka oo qoqobihii la yidhahdana way ka sugan jirtay aqalka iminka waxaynu ka warqabnaa marka guntinta iyo gambaatiga la dhiibayo wakhtigaa maxaa la dhiibi jiray guntinta iyo gambaatiga ahaan jiray haddii dhulka lacagima jirin beryaha lacag yaroo hindiya la odhan jiraa jiri jirta oo rubiyad iyo bawlad iyo saaq iyo wax caynkaasa la odhan jiray iyaa jiri jirta markan dambe shirika iyo haddana subuniga iyo yimaadeen laakiin lacag hindiyan la odhan jiro oo midana rubiya tahay midana bawlad furaleya tahay iyo saaq garhweyne abaa jiri jiray lacagtaa yarba nimba intuu haysto sii yar hormarin jiray laakiin wixii la bixin jiray wuxuu ahaa un goor hore iyo goor dambaba yarad xoolaadunbuu ah horwad iyo yaradkii oo dhan ama 25 ama 50 iyo qorigii iyo faraskii wax aynkaasa nimba wuxuu hayo yaa la bixin jiray inanka bilaa waa la siin jiray ama gaashaan baa la siin jiray inanta walaalkeed sodoga waxaa la siin jiray dee haddii laahdo laba go-oo maxamuudiya la siin jiray sodohda waxaa la siin jiray mare maxamuudiya inanta waxaa loo goyn jiray dhexid daraamuusa iyo mare 3 fardadooda oo maxamuudiya iyaa la siin jiro loo soo jiro lagu aroosi jiray inanku 2 go-oo maxamuudiya iyo garan yaroo abu askari la yidhaahdo iyo ku aroos kari jiray macawisaha iyo kabaha iyo waxaas ma jirin koofiyada ma jirin shaareer ma jirin waa waaye dambe waxaas anigu wixii aan soo gaaray waxyaalaha noocaasoo ahaa kolka arooska habeenkaana waxaa la dhisi jiray waxaa la keeni jiray waxoogaa milixa waxoogaa buuriya dhiil caana ah haan caano oo halkaas oo aleelaalahoo quruxdaad yaabto daar sare iyo daar hoose intaba leh inta dhexdana aleel iyo cabaadh lagu xidhay baa la keeni jiray inanta inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yahayn baa loo xambaarin jiray inanku inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yihiin buu gacanta qabin jiray sidaasay arooskii iyo aroosadu haddii areedo ku aroos galayeen bal markay arooska soo galay waxyaalaha noocaas ah bal suldaan markay aroos galaan ee aqalgalku gaadho gaaf baa jiri jiray iyo aqalgal bay kala ahaayeen waqtiyada hore maadaama dhallinyartii waqtigaa ku soo barbaartay ee soo gaadhay aad ahayd siduu dhici jiray guurkaasi hore ee aqalgalka iyo gaafku maxay kala ahaayeen way kala horeeyeen arrintaasi way kala horeysaa tani waa markan dambe la magaaloobay gaafka iyo arrimahan dambe beeralayda la noqday weeyaan gaaf baa la samayn jiray waxaa la odhan jiray sida qaalka awaati iyo waxaykaasaa la odhan jiray waa la isgargaari jiray lacag baa la isku gargaari jiray ninba haddina qaadhaan buu soo bixin jiray dabaq baa halkaa la dhigi jiray dabool laho qurux badanoo la soo xariireeyey iyaa la dhigi jiray lacagtaasaa lagu riri jiray arooska sidaasaa lagu gargaari jiray tani waa markan reer magaalaha la noqday iyo beeralayde ta hore taasay ahayd tan dambe ee dhexena taasay ahayd oo sidaasaa la odhan jiray oo sida qaalka awaato qoryo laysku shidaayo maxay waanigaa qabanay baa la odhan jiray sidaasoo hareeraha laga soo fadhiisan jiray inanka waxaa la odhan jiray inamada dhallinyarada waxaa la odhan jiray nin waxba lagu jiro aduu hebelow waxaa ka gabay aduu hebelow caawo waxaa ka hadal aduu hebelow caawo hees hiblaayo noo qaad markaasuu inanka intoo la sare joojiya shaarku ka yiraa jiru kalba hoos u jiidi jiray waa marka xafladda caroos ku socoto markaas 7 bixi halkaasaa haddii raado 7 habeen baa inanka maxaa lagu soo gelbin jiray marka aqalka la soo gelinayo waqtiyada hore aad soo gaadhay adigu waxaa la odhan jiray ya nabi salaam calayka ya rasuul salaam calayka ya xabiib salaam calayka arrin taasaa lagu soo dhoweyn jiray inantana waxaa la odhan jiray
aroos khayra aamiin alool cadde aamiin allaa yidhi aamiin sidaasaa la odhan jiray dumarku qasaidada caynkaas ma aqoonine xoolaha markaa la qali jiray oo arooskaa loo qali jiray iyo xafladiisa la joogo maxaa la odhan jiray noocyadaysa ahaayeen xoolaha loo qali jiray wan sumala la qali jiray wan sumala iyaa lagu sadqayn jiray laxna lama qali jirin wan tumana lama qali jirin orgi tumana lama qali jirin wan sumana la qali jiray oo bisinka loo qaban jiray inantu u qabato inantu ay madaxa u qabato isaguna bilaawe aanan mar mooyaane mar labaad lagu celinin iyo haddii idhaahdo halkaa intuu ciribta u saaro daabku halkuu ku yaala iyuu sidaa u soo jiidi jiray bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar odhan jiray marka waanka sidaasaa lagu gowraci jiray intuna macashay u haysay midigta loo dhigo inankuna sidaasuu gowraci jiray waxaa jiray ciyaaro laga ciyaari jiray carooska marka uu dhaco oo kala duwan ciyaaraha adigu aad soo gaadhay ee laga ciyaari jiray wakhtigaas sooyaalka dhaqanka caroosyada soomaalida noocyaday ahaayeen waxay ahayd 3 shay saddexdaba waa loo ciyaari jiray mar waxaa la gooyi jiray welwele wax loo yidhaahdo aniga laftaydaaba dee gooyi markaan arko gabadh casoo cudud weyn caroos la gal baan idhaahdaa markaan arko ayradii geella adduunyo dhaqaan idhaahdaa markaan arka aarmi diriireedna afdiilla gadaan idhaahaa markaan arka macawiyaal midab badanna magaalo galbaan idhaahdaa markaan maalintaan helo tareen meel tuganna baddaan ka tallaab idhaahdaa waxaan ku goyn jiray noocaasoo aniga laftaydaaba goynayayde heellada marka la tumanaya mar waxaa la odhan jiray saddexley markii dambe waxaa la odhan jiray karuboodo markii dambe waxaa la odhan jiray hirgo dee waa kaa ciyaaraha noocaasaa la ciyaari jiray waxaa kolkii dambe ay kolkii hore gundhati iyo go iyo garanka shaarka abu askarigaa la gashan jiray markii dambena macawis abubaxrayna ama sabarandalla oo yidhaahdo ama shaadh eerooya cimaamad yaroo cad kaba haddii la yidhaahdo ama shabag la yidhaahdo maasa ama cagbacag la yidhaahdo iyagu isdhisaya maaskaas oo baalo yaryaroo burburan oo sabiina inay marinin hore u marin lagaga taago hoosta oo ciidda iyo bacadka iyo haddee dhagaxba ka ilaaliya iyaa la samaysan jiray hablaha waxaa loo goyn jiray masar la ydhaahdo haddii la idhaahdo qurux badanoo kolka la doono lagu xidhan jiray muxuu ahaa dharka sanduuqi lama qaadanayni iyo shandade waxaa lagu xidhi jiray dharka ninku kolkuu socotaynayo wuxuu ku jiray masarkaas yaroo qurux badanoo haddii la idhaahdo 4 koono laga gunto iyuu dharkiisa ku qaadan jiray markuu socotaynayo inanta waxaa loogu goyn jiray go ama foolgaa la odhan jiray ama haddii la dhahdo waxaa la odhan jiray haddii la dhahdo muxuu ahaa lanjeer baa la odhan jiray markii dambe inanta waxaa loo gooyey hablaha loo gooyey toob la ydhaahdo shanan oo yaroo gaaban oo halkaa bawdada bartankeeda ku dhaca iyo googarad la ydhaahdo 4 waariya badh oo la ydhaahdo 4 waariya waarka siigada yaa la odhan jiray go-a foolgahana way huwanaysay masarkaana way xidhanaysay kabaha hadeerada baarushuud la yidhaahdo maasana waa loo goyn jiray waa loo yeebi jiray bahalahaasoo jaqiiq yidhaahdaa loo xidhi jiray waa kaa arrimo noocaasay ahayn caroosku intuu ku nagaan jiray aqalkiisa ee uu fadhiyi jiray muddo intee leeg baan 40 cishu fadhiyay 40 bax baa la odhan jiro 40 ka maalmood ninka cidda u timaadaba waxay odhan jirtay waa adiga hadeera boqor maanta noo ducee baa la odhan jiray intaanada 40 bixin waa laga ducaysan jiray ninka arooska inantuna sidaa unba hedo dumarku iyana odhan jireen naa dhabarka naga dhirbaax annagana iyadana dhabarkaa loo dhirbaaxi jiray inankana dhalinyaro sidaasay odhan jirtay waar noo dhirbaax waar noo ducee waxaa jiray 7 bax waxaa la odhan jiray iyaduna 7 baxaasi muxuu ahaa 7 waxaa arooska kolka cishada u horreysay la meheriyo ayaanteeda la 7 jiray oo loo ciyaari jiray cishada hore waa gelbiskii baa la odhan jiray cishada dambena 7 bixiyo arooska reeraha u soo diiqi jirayoo tu shuura keenta tu bariis keenta tu hadeelada kibis keenta tu hadeelado aasalo hareeraha laga soo galbi jiro saasaa la odhan jiray marka aqalkayga may ka bixi jirto aqalka la tegi jirtay 40 ka cisho iyaduna saan baahay saaba yaroo fadhiis 7 waa iska waa 7 cishade laakiin 40 ka kasii badan ma 40 ka gurigooda kama baxay inaan yeelan doon tan imikana haye balan imikana waxaan leenahay waxa yimaada imikana waa idinkan arkayoo haddii la dhahdo gooyo guntaa la galayoo haddii la dhahdo inantii unbaa lagu odhanayaa
hebelow inan baan kaa doonaynaa balberiya saa dambaan si ragna mid waa la isku manayaa oo inan baan kaa soo doonanee haye inantii inankii waa horey soo heshiiyeen iyagu waa wax ama maraykan laga keenay ama laga keenay london ama laga keenay sacuudiga ama laga keenay carabta arrin lagu soo heshiiyo dibadda la isku bartay uunbaa dadka loo soo gudbinaya imika la yidhaahdaa inan baan idinka doonaynaa isarag wacan haye dee waan idin siinaa inantii berrina noo meheri dee waaban idiin meherinay haye waxoogaa gab oo lacaga waa la keenay waxoogaa macawis iyo cimaamadiiyo haddii la dhahdo goshaala haddii ninku goyn karana waa la keenay iminka waxaa la ydhaha dabadeedna hadday boorame iyo hargeysa isla joogaanna isarag wacanoo 3 habeenba kama badataba intaa un baa la dhaa mixiiskiiyo mixiisadii haye waaba la isku beeriyey waxaad moodaa in wixii hore ay fududaadeen oo lasoo koobay gooyo gunta la dhaa gooyo gunto iyaa la idhaahdaa anigu dee waanigii idhi haddii la dhahdo waagaa hore waa la isxasuusan jiro wadaadka isku meheriyana waa la xasuusnaan jiray waalidkaysa siiya hablahana iyo inankana waa la xasuusnaan jiray iminka waxaaban anuu idhi sida bahalka raanta leh oo baatir geel heday dabadeed ku boodo intuu baarka kaga dhegay iska bixi markay tidhi haddana buuca kaga dhegay buc markay tidhaahdana dhiiggeeda balaxsadoo baruurteeda laasto dabadeed ka boodo intuu meel biyala tegey uu laqanyada ku biiyey dabadeed ka boodo burcad iyo malluud iyo dhinta wada burburiyo kayn buuran seexday waxaan idhi waar boqor baa hablaha dhalay waa la soo barbaarshay cilmi baa la soo baray nacas baalka raaciya balaa laga ilaashay yaa marka waxaan leeyahay aniga igan bixiyiyo boqoradii hablaha dhalay iyo kuwa beesha wixiga waar balayaan la boogaan dhallinyaroy ee soo xasuusta intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal oo aan ku soo qaadanay guurkii hore ee sooyaalka soomaalida dhaqanka u ahaa waxaa marti inoogu ahaa suldaan xasan xadi baade oo ka mida salaadiinta dhaqanka ee gobolka awdal tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal aan ku bilowna kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay si aad u doonayso ciyaaryahanka garabka weerarka uga ciyaara kooxda Schalke ee dalka Jarmalka Rabbi Matanda kaas oo u dhashay dalka Wales. United ayaa tallaabadan u qaadaysa haddii ay ku guuldareystaan inay la soo siixdaan ciyaaryahan Jadon Sancho oo kooxdiisa Borussia Dortmund ay si aad isugu dhajinayso. Manchester United ayaa Matanda u aragta bedelka macquulka ah ee xidiga ay muddada dheer daba ordayeen ee Jadon Sancho kaas oo lagu qiimeeyo 100 milyan oo pound. Kooxda Schalke u safto xidiga Matanda ayaa kaalinta 17aad kaga jirta horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka haddii xagga hoose u dhaadhacaan kooxda Manchester United waxay Matanda ku heli doontaa ilaa 13 milyan oo pound. tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa dad soo qiimeeya u diray xidigan intii uu furnaa horyaalka Bundesliga iyaga oo ka dhiganayay bedelka macquulka ah ee haddii ay ku guuldareystaan Jadon Sancho. Matanda oo 19 jir ah ayaa waqti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa Schalke lamana oga halka mustaqbalkiisa uu ku dambeyn doono. dhinaca iyo Faransiiskana kooxda Paris Saint-Germain ayaa si aad u doonaysa ciyaaryahan Miralem Pjanic oo u dhashay dalka Bosnia kaas oo u ciyaara kooxda Juventus ee kubadda cagta. Pjanic oo loo tiriyo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee qadka dhexe ee ka ciyaarta horyaalka Serie A ayaa waxa PSG ay u doonaysaa in ay ku lamaaniyaan xidiga reer Talyaani ee Verratti iyagoo doonaya inay soo xoojiyaan qadkooda dhexe. sidoo kale Pjanic ayaa waxaa doonaya kooxaha Chelsea iyo Barcelona ee kubadda cagta. tababaraha kooxda Juventus Mauricio Sarri oo si aad ah u jecel qaab ciyaareedka ciyaaryahan Jorginho ayaa kooxda Chelsea u soo bandhigaya in Pjanic ay kaga bedeshaan. kooxda Paris ayaa xoogeeda isugu geynaysa in Pjanic ay ka soo afduubtaan kooxaha doonaya.
dhinaca kale kooxda Real Betis ee kubadda cagta ayaa doonaysa inay la soo saxiixato xidigaha garabka weerarka uga ciyaara kooxaha Chelsea iyo Napoli ee Pedro Rodriguez iyo Jose Colecan, kuwaas oo qandaraaska ay kooxahooda kula jiraan uu dhacayo bisha June ee soo socota. Real Betis oo doonaysa inay isa soo xoojiso ayaa beeca xorta ah ku heli doonta labadan ciyaaryahan, laakiin waxa ay ku qasbanaan doontaa inay kala xaajooto mushaharkooda. Pedro iyo Colecan oo mushaar qaali ah ka qaata kooxaha Chelsea iyo Napoli ayaa iyagana dhankooda ogolaan doona wadaxaajoodka ay mushaarka ku dhimayaan, maadaama kooxda Real Betis aysan la hayr ahayn kooxaha Chelsea iyo Napoli oo labada ciyaaryahan ay u soo ciyaarayeen. dhinaca kalena kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa war wanaagsan ka helaysa ciyaaryahanka ay muddada dheer ku daba jireen ee Dries Martinez, kaas oo u dhashay dalka Belgiumka una ciyaara kooxda Napoli. Martinez ayaa in dhawaalaba waxaa lala xiriirinayay kooxda Chelsea, laakiin hadda ciyaaryahanka ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii joogo horyaalka Talyaaniga, taas oo rajo weyn gelinaysa kooxda AC Milan. xidigan weerarka uga ciyaara xulka Belgiumka ee Martinez ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Napoli waxa uu dhacayaa bisha June ee soo socota, waxaana uu si xor ah ugu biiri doonaa kooxdii uu doono. wararkeennii cayaarahana waa naga intaa. markana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan mid ka mid ah qasiidooyinkaan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan. waxaa ku luuqeynaya kooxda xidigaha geeska. samihiyo ka durugsan ereyga duxle ee dabacsan gefiyadeel qaaf ku daadsan iblays dabraday u duursan dadkoo samihiyo ka durugsan ereyga duxle ee dabacsan gefiyadeel qaaf ku daadsan iblays dabraday u duursan intiya adiga dabuubsan durusnabiyow deliirsan ku daalacaya muuradaas dadkana u tilmaamay dowsan diintiyo adiga dabuubsan durusnabiyow deliirsan ku daalacaya muuradaas dadkana u tilmaamay dowsan ya nabiyallah ya salaam calayka ya xabiiballah ya salaam calayka asalaam calayka jahliyo dulaysan damaan diinba haysan dulmiya ruuxii daciibsan damiinoo idil dambaabsan dadkoo jahliyo dulaysan damaan diinba haysan dulmiya ruuxii daciibsan damiinoo idil dambaabsan diintiyo adiga dabuubsan nabiyow daliilsan ku daalacay amuradaasan dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabuubsan duruus nabiyow daliilsan ku daalacay amuradaasan dadkana u tilmaamay dawsan ya nabiyallah ya salaam calayka ya xabiiballah ya salaam calayka asalaam calayka guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waa caashe ibraahin aadan iyo anigo cabdixakiin maxamuud shirwaco idila tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. dadko dhamidihii dayaysa
diirsan duusha sare diifadaysan dubaaqana wada duraysan daaradii habow dawaqsan allah dadkoo dhammidihiin dayaysan duusha sare diifadaysan